kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. Dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada. Hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka lana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan. Waa mahadsantihiin. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan kaga hadli doonaa casharkeenan CCNA topic waxa weeye maanta LAN amba local area network switchka iyo local area network ayaan ka hadli doonaa oo aad muhiim ugu ah. waxaan baranaa waxa weeye waa routing and switching. So switchka ayaan baranaa maanta wax loo yaqaano layer 2 switches and layer 3 switches, farqiga iyo differentiga u dhaxeeya. waxaan kaloo baranaa hubka iyo switchku waxa ay ku kala duwan yihiin, switchku sida u shaqeeyo oo networka u helo, muhiimada uu qabto switchku iyo waxyaalahaas ayaa kamid ah waxyaalahan baranayno insha Allah hadii la yiraahdo la socda. waxaan kaloo baranaa layer 3 switches. waxaan kaloo wax ka ogaananaa wax la yiraahdo VLAN amba virtual local area network, VTB iyadna waan ka hadli doonaa laakiin hordhac ahaan ayaan u qaadanaa. VTB wax laga soo gaabiyay virtual trunking protocol, kuwaas ayaa kamid ah kuwan isticmaali doonaa hore. Bandwidth switch wuxuu leeyahay amba xariga cable-ka crossover cable iyo straight through cable. waa methodka cable-ka, qaabka cable-ka loo sameeyo cable-kaasi oo UTB oo kusoo barateen community A+ intii soo martay. intii kalena waa cable-ka isku xidha switchka iyo routerada iyo computerada isku xidha ayaa la yiraahdaa magacaas. cable-kaasi markaa waxyaaluhu qabtay ee ugu muhiimsan waxaa kamid ah inuu isku xidho laba device oo network ah sida switch iyo router, laba switch, laba router, PC to switch, PC to router intaas u qabta. markaasaan hore usoo baranay straight through cable-ka la yiraahdo wuxuu isku xidhaa laba shay oo kala duwan sida switch iyo computer. PC iyo router, PC router maaha, switch to router waxaa inta badan ayaa loo isticmaalaa. xarku waxay leeyihiin different speeds aan hore usoo qaadanay casharkeeni hore saan ugu soo qaadan. Okay, collision domain iyada lafteeda soo qaadanay oo waxaan idhi hubku waa collision domain, one collision domain. hubka wixii doonaaba ha ku xidhnaado, hal hub haddaad haysatid waa one collision domain. kan ayaa markaa hub loo yaqaanaa. hub haddaad doonaysid inaad ogaatid waa kaas. so halkaa waxaa ku qoran internet hub. internet hub markaa wuxuu leeyahay 4 ports iyo more than each port markaa meel bay ku wada xidhan yihiin oo waxa weeyaan information amba dabka ay share kareen waa sida power extension oo kale saas u shaqeeya. marka network imika xaadirka looma isticmaalo because wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo collision domain. informationkii markuu diro ay computeradii isla hadlaan, informationkii ayaa isku dhacaya kadibna crash baa dhacaya. kadibna crashkii markuu dhaco waxay imanayaan ambulance-kii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa timing bay qaadanaysaa si loo fix gareeyo. so markaa network waxa ku imanaya wax la yiraahdo inuu habsan noqdo because wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo carrier sense and multiple access with a collision domain wax la yiraahdo amba loo soo gaabiyo CSMA CD. okay, so collisionkii markuu dhaco network uu istaagaya. markuu istaago waxa dhacaya inuu kolba mid waqti siiyo ay noqonaysaa. marka waqtigaasina looma baahno, waqti dheer ayuu noqonayaa. okay, so saa darteed waxaan isticmaalnaa switch. bridge baa soo baxay la isticmaalo san hore uga soo hadalnay laakiin waxa loo gooriyay switch markaa waa each port kasta oo switchku waa one collision domain. kelinta xusuusta, each port of a switch is one collision domain weeyaan. okay, saad halkan uga jeedin. marka examka CCNA exam waxa lagu oranayaa how many collision domain can you see in this picture. okay, so when at 40 1 2 3 4 hadii lagu dhaha qaybtan kale how many collision domain you can see here waxaad oranaysaa waxaan arkayaa
two collision domain, one here and one here as well. Okay, haddii tan kale lagu weydiiyo how many collision domain ayaa xaggan ku arkaysaa dhinaca kale si fiican u fiirisid waa switch waxaa lagu qortaa afarta calaamadood ee arrow mid badhan socdo waa one collision domain iyo one collision domain iyo one collision domain iyo one collision domain. intan gebigaygu saddexdan boor ee hubku waxay isku tahay one collision domain all of them. Okay, saad ogaatid ayaa la doonayaa. Broadcast domain weeyi ayuu leeyahay. broadcast waxa ka sheekeynaya dad maqasho waxa laga hadlayaa routerka arrowyadiis waxa way laba arrow isku soo jeeday iyo laba kala socda waa in and out buu sameeyaa way ka dhigantay. Okay, waayahay LAN switch waan toos u balaaban markaa LAN switches xakii aan isku soo xidhanay laba switch oo isku mid marka la isku xidho maxaa la isticmaalaa nadi crossover crossover cable. Okay, taas waa technology hore. imika any cable hadday ismacayso switch haysatid laba switch waxay isticmaalaan wax la yiraahdo auto MDX ama media dependent wax la yiraahdo. So wuxuu helayaa xarigii oo kala duwan automatically ay u bedelayaan kadibna saasi markaa ku wada hadlayaan. Okay, laakiin Cisco CCNA exams ama backtrace markaa practical ku sameynaysid waa ina taqaani waan ugu iman doonaa insha Allah hadii la yiraahdo. Okay, layer 2 switches switchka sanoodnay waa layer 2 data link oo saamooda ay yimaada. layer 3 switches waxa jira different ka u dhaxeeya labada network halkan iyo network halkan farqi weyn baa u dhaxeeya. networkani bartanka yaala waa layer 2 switch baa yaala layer 2 hardware computer ku xidhan ABCD ayaa ku xidhan say ko internet u tagaan maxay u baahan yihiin router. kani waa router baa loo yaqaanaa halkana waa internetkii. hadduu routerkaasi markaa jirin internet ma tegi karaan laakiin wuxuu kaga duwan yahay layer 3 switches waxa la yiraahdaa wuxuu leeyahay wuxuu isku koobsaday oo isku daray router iyo switch ayaa la iskaga dhigan karaa marka uma baahna si router inaad halkan ku xidhid. You don't need intaas ayuu kaga duwan yahay. waan u iman doonaa configuration soo shaqeeya configuration saasuu shaqeeya markaa. Okay, interface-ka no switch warba la odhanayaa kadibna IP address baa la siinayaa no shutdown kadibna wuxuu u bedelayaa inuu noqdo router because no switch warba la yidhi. haddaad tidhaha show IP interface brief wuxuu ku tusayaa wuxuu ka dhigayaa IP address buu siiyey. Okay, waan baran doonaa iyagana